سؤال ugu horeysa sheekh waxay leedahay gabar xaq mu leedahay ninkeeda habeen walba markuu guriga imaado inay weydiiso meesha uu ka imaaday ama saacada uu guriga imaanay ma kontrooli kartaa alxamdulillah mal ana ku celiya طيب الحمد لله waxaan filayaa waxa loo guuxay xaalad jirtay tilmaameysaayo طبعا su'aasha markii koobaad ay timaadana ma aha un xaaladaha qoyska ee jira weeye midna waa sida asalka ah ee saxda ee wanaagsan midna waa sida khaldan hadday dadku reer dhaqmaya yihiin intaan su'aalba la soo gaarin inay xuduud kala yeeshaan buu reerku ku jiri karaa labada qof ee shirkadda ah labada qof ee deriska ah labada isqaba labada isdhalay haddaan xuduud la kala lahayn isku dhacaa badanaya saa darteed munaasabad horena waan ku yidhi haddana waa ku celin rag iyo dumarka isguursanayaay iyagoo dad waaweyn ay isu yimaadeen intaanay isguursanayna isu iman iyo intay wada joogaanba qof walba saaxiibna waa lahaa waana yeelan qaraabo iyo ahalna waa lahaa waana yeelan dad bay taxbarasho isku barteen goobo laga barto dad bay deris isku barteen dad bay shaqo isku barteen dad bay ahli iyo qaraabtinimo isku barteen dad bay dadka isaa isku barteen inay la socdaan oo isku dhowyiin isku sii barteen dad bay fikadiisa isku barteen qofka bini aadamkiihi meel cidlaha geed ka baxay maaha tan iyo maalinkii gabadha iyo wiilka isguursaday tan iyo maalinkay yaryaraayeen dad bini aadan unbay dhex joogeen oo magaalo iyo suuq iyo xaafaday dhex socdeen khalqiga ilaahay bay isbaranayeen barashada marka laga soo tago midda xun iyo midda wanaagsan qofku markii uu reer noqonayo ama qof nolol la wadaagayo qof xabsi ka soo baxay iyo qof qabri ka soo toosay maaha isagoo mawjad bini aadama ku dhex jira oo sidii u dhex jiray qof wax wadaagayaan waa midda koowaad midda labaadi labadan qof ee gaar ahaan isguursaday intaanay isguursanin mid walba guur buu raadinayay gabadhuna boqolaal bay la xiriiraysay wiilkuna boqolaal buu la xiriirayay intii la xiriirayey la isbaray telefoon baa la kala hayaa waa la xiriiri jiray waa la hasaawi jiray waxbaa la isweydiin jiray qaraabadaba marka laga tagay iyo saaxiibada kale maanta waa la isguursaday xargahoo dhan jar suuragal maaha xataa haddaad isku daydo wax fuli kara maaha haddii la raadiyo waxaan fuli karinna kii la aas-aasay baa duma markaad reer noqotaan eed isguursataan xuduud kala yeesha intaad xuduud kala leeyihiin xurmaa idin dhex taalla haddaad xuduudahoo dhan isu dhaaftaanna waxaan maqli jiray waagan yaraa barashadu ma xuma laakiin dhaalacashadaa xun qof inaad isbarataan ma xuma laakiin aad hoos wax walba isu gashaan baa xun qofka bini aadamkiihi xataa labada isqaba inta xogtaada qaybo ka qarsoon tahayna xushmuu ku hayaa markuu xogtaada haya'da ugu dambaysa ogaadana bilaa qiimaad noqotaa waxaan dhihi lahaa gaar ahaan da'yarta isguursanaya aad hoos ay isugu gelina haddaan tusaale idiin sameeyo boorsooyinka waxaa lahu fura ha isweydiinina gabadhan boorsadeeda waxa ugu jiray uusan faarin maxaa ka galay yaday u taallaayo boorsadeeda ma dahab baa ugu jira ma sawir baa ugu jira ma faraati baa ugu jira wixii ugu jira faraha ka qaad hadduu soo istaago yidhahdo boorsada ii fur maxaad rabtaa inaan ogaadan raba waxa ku jira waa saqajaannimo wey idabdarro wey iyaduna yana boorsadiisa baadhin hadduu halkaa ugu yimaado boorsadeeda taalla yuunan furfurin haddaad furfurta bilaaba balaayo kaa soo dhexgasha
iyaduna boorsadiisoo taalla hadday timaadda yaanay furfurin boorsadan waxaa ugu jira idinkoon isaqoon buu qofka kale ugu jiray adiga boolis ma tihid dembi baara ma tihid dalxab dacwad ooga ma tihid maxaa qofka boorsadiisa iyo baaritaankiisa qoorta kuu geliyey maxaa idinka dhaxeeya dhaqan wanaagsan iyo nolol aad qaybsataan intaasaa kaaga filan nin saxa taabiciinta ka mida nin baa u yimidoo gabar buu reer weydiistay isagoon arag waa la siiyey waa loo keenay maalinka dambe gabadha la ii keenay gabadha way qurux badan tahay way caqli badan tahay way karti badan tahay laakiin lug bay kar dhutinaysaa aysan yeelaa buuri wuxuu yidhi haddaad inta kale ma fiican tahay ha iska hayso niyow ku soo noqo aysan yeelaa buuri wuxuu yidhi haddaad tartanka orodka inaad ku gasho rabtay dee iska fur tartan orod haddaad rabtay inaad ku gasho bal heerka dhaqankiisii iyo wixii noloshii intii kaleo dhan waa fiican tahay lug bay kar dhutinaysaa maxay ku yeeli maxaa dhiboo ku jira waxaan rabaa inaan idhahdo qofka ceebihiisa lama baadhbaadho telefoonkaaga ii fur facebookkaaga ii fur youtubekaaga ii fur emailkaaga ii fur reer dumaya dhaqankii wey adna emailkaaga ha siin isna kiisaa raadin adna telefoonkaaga sida saxdaa waxaa weeye telefoonkaaga oo dhacaya inuusan qaban wey telefoonkaaga oo dhacaya inuusan qaban wey telefoonkiisaoo dhacayana inaadan qaban way masajkiisa akhriin kaagana yuusan akhriin taas waxaa ka dhalanaysa gabadha dad baa la soo hadlaya hadduu yidhahdo yaa kula soo hadlay maxay rabtay dumar baa u yimid guriga ku soo booqday markuu arkay wuxuu yidhi dumarkan maxay ahaayeen maxay rabeen way baxday dad bay soo salaamtay saaxiibbay leedahay qaraabay leedahay suuqay aaday meelay ku leexatay waad soo daahday xaggeed ku soo leexleexatay hadduu yidhaahdo hadday baan ku soo agmaray oo dad baa kula socday yay ahaayeen taas nolol maa cadaab weeyadii qofkan waa qof dembiila oo lugta wax kaga xidhan yahay oo meeshuu maraba kamera lagu haya miya waxay tilmaamaysaa kalsooni xumo qoys oo jirtay tilmaamaysaa kalsooni xumo qoys markay timaadana qoys burburaya waa baasiinka dab ku siishid adiguna marka waxaad tidhahdaa anna telefoonka ii dhiibdhe marka gabadhu kontaroolka haddayso ninkuna kontaroolka haddaayo gabadhu hadday aaminaad jirto marka la isguursanayo qofaad kalsooni iyo aaminaad siisay wey dadkaa aad arkaysaan muujeeddaa ka kula dhashay midka aad dhashay kaad isu dhaxdeen qof nadiifa ma jiro qof ceebka sarinana ma jiro qof aan qaldaminna ma jiro qof walba qaradkiisa toosh haddii lagu shido dadka la iswada nici reerkuna dhisnaan maayo waxaad samaysaan inta daahirkaana kaga gaabsada wixii dhacana ilaa bannaanka u soo baxo wanaag ku fasiroo wanaagga ka raaca hoos haysu qodinoo haysu galgelina marka hore waa la ysku fiican yaho waa la isjecel yahay markaasaa meel walba la ysu galaa markaasaa maalinka dambena durbaqac madaxa la ysku dhuftaa kala aruursanaada wixii dan ahna wadaaga waxaan rabaa inaan ku gunaarado laba waaweyn baa tihiine dan baa isu keenkeentay dan baa isu keenkeentay dantii isu keenkeentay ka wada shaqeeya waxa kale maalaa yacnigan iska daayo billahi tawfiiq oo ilaahay qadartiisa waa ahayd muxaadarada markii loo ballansanaa galabtii axadda ahayd u fiirsada haddaan la baajin lahayn roob baa baajin lahaa duhurka wax yar kadib roobkii bilowday ilaa fiidkii buu daayay marka waxaan is idhi walaa muxaadarada haddiidaan baajin lahayn oo roob ku baajin lahaa wadaadadu waxay dhihi lahayn roobkii samadii baan ku fasaxnay samadii baan ku soo fasaxno annagaa kala tuuray bay dhihi lahayn markaasaa laga yaabaa inay khalad kale sii keri lahayn marka meeshaa waxaa ka soo baxay man taraka shay-an lilaahi xawadahu allahu khayran minhu shay haddaad ilaahay dartii uga tanaasusood uga tagto wax ka fiican bu ilahay buu ugu bedelaa nabigaa sidaa yidhi sal alla alay wasalam soo maaritaan marka laakiin waa su-aal dhallinyare waxa waayeen ciroobaya miyuu fadhiyaa mise intay dhallinyaro iyo dhallinyare xigeen tahay su-aasha meesha ku qorani waxaa lay weydiinayaa waxaa la yidhahdaa oral sexka
oral sex way waxa la weydiinaya الجنس الفموي عربته يراهدان إن رجي هوانكي إسلامتنا أي أنوكتو يستغل عبور ربا وقول له فوق سواشا سديبي في سين marka way soo dhiibeen waxay yiraahdeen waxa la ninku haduu faqih noqdo oo fatwado ama qaadi noqdo oo dadka la xukumo wax badan oo xasaasiyad dadka ku aba maalin kasta say u soo marayaan bay isaga caadi la noqon waxaan maalin kasta la weydiiyay ma soo maraan waxyaabo laga yaabo haddii dad dacwoonaya ay sheegaan idinku dhagaha qabsataan baanaga dhagaha iyaga intay ku batay say carabtu yiraahdeen baa noqonay kathratul masasi tudhibu al-ihsas waxay badan hada ku dhex jirto dareenkii iyo xasaasiyadii aad ka qabtay baa ka baaba'aysa hada maanta wax la yaabto oo berina aragto berida ma aragto caadi buu noqonay waa la qabsan marka waxyaabo iskala qabsanay laakiin idinku waa dhibsanaysaan qaarkiina way rabaane laakiin haddana الله المستعان مسألة ثانية مسألة عصوب هرتا معها مسألة ده حضارة دانيس ده حقال كان عالمكو ودليين معها ومسألة رقم هرو وسوشي لشري أهوان رقم هذا هرو الرئي إمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير كسورة النور مسألة ده مكاكا حضيان راغب الأصفهاني كتاب كيسان أدب كاه سنقصه سوق غورينيا نكو قبيل سوق غورينيا مسائل كاسو كله عربتي هورانا خلي النبي جوجتينا arrimaha in la sameeyo nusuusta ku soo aroortay way isku caay jireen Abu Bakar Xudaybiya muxuu ku yiri ninkii gaalka reer Quraysh nusuus badar Allah tisoomadhe badarka waxa la yiraahdaa xubinta dareenka ee dumarka taanuug ku yiri maana saayiraya ku caayay kan kalena wuxuu yiri ولما بدا فرجها جاثما كرأس حريق ولم يعتمد سجدت إليه وقبلته كما يفعل الساجد المجتهد قد يحوي انتي عبين وحين خمر يسانو عبيين بامركي مال يحبين يعبيين رغي الدمرنا ويسوق جيرين مسلمين نوايا حايا فإسلام قوما يرقبتين لتوكد هذا وإسلام قوما ويقبتان قوما دور أكتر يجوكتا يدي وحر مرتو تكسيدان وانا عبسيهم دمانتو صورة سوكشا كان يايو قلال بان كتيرا مركي فرصتين وين قلال كاركي سجدت إليه وقبلته كما يفعل الساجد المجتهد فكحر وإلهي يرى هذا ومسائل قديمة وعلماء الكهف الشرين وحديث كريا معه لكن هذا حلقا يميديها هي عالم كهلك تولان مخضي هي قرارات بدن ولا قري بقات إن الله واحد لكانت علماء الزمن كوا يسوق خلافين أرين ويسوق قبتين وحرام يحرام ما وأنا مسائل اجتهادي وقوق سيد الراجح الله ويدين شريعة أنا قراءة ذي أركته حرام وي نوحن قبائل حرام لو صوّدنا عافي ماذا هو حرام لو كل يصدح لي هيدا عافمات كي UN كقيبت هذا كانسركو كلن كي علم باريستا مجالة ليون فرنسيس كقو قبتين ريبوت كيبان هيا قرالك قرال سكس كي كهد ليين هي كانسر كأفكا كبدا عسامين توكو يشو وهي باريتان كي عن ساميني سدح ميرو لبا بو كسر هي دادك قرال سكس كاستعمالاي سوء غفدي دادك عن استعمالي صدرت الواح عافيمات كي عذر الله يسوق قد بيو وعمرك الكوبات وعمرك اللبعض دي حبين تنطرن كالشريعة انه وحي ريبتي كعنت مديق إن لغو قطابت وحي مديق تنهي سغترين هانا كو قبانينا وحي علمات يذكر رأسيه مديق تشرفت هذا الله إلالينا إياه دي ماشي مديق تشرفت هذا الله إلالية أفكي إلهي اللي وحو السيئي انطلق للسيئي دوه يشحبون معه متصدحاننا
dadku markay xiriir gogoleed yimaado dareenka shahwaduna kaco qoyaan baa yimaada madyi la yidhaahdo madyigaana nasan waa nijaas haddii meeshii la yidhaahdo rag iyo dumarkana dumarkaa ka madyi badan walidaalika waxay carabtu tidhahdaa alfaxlu yumdi waalunhaa taqdi taqdi iyo yumdi waa isku mid xarfahan baa loo kala bedelay bal imaamu lmaawardi iyo nawowi waxay leeyihiin haweenkay aad ugaga badan tahay ragga haddaan nidhaana dhacaankii waa nijaas iyadoona aadan ku baraaruginna waa soo baxaa markay shahwadu kacdana haaliban uu soo baxo dee meeshii hala aada haddii la yidhaahdo nijaasada hala jaqa waayo wax daruuro oo kalifaysana ma jirto marka nijaaso in la cunana asalka shareicadu waa xaraam asbaabtaa iyo asbaabo kale waan soo kooba warkee bay aniga igula dhowdahay inay xaraam tahay laakiin waa masala ijtihaadiya waana masala khilaafiya intaa kadib hoos aan usii gelino waxooga inta duqayd iyo waayeelka dareenkooda aan tixgelinayo bilahi towfiiq